asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalaha ku xidhan janalkeena qubtaan kusoo dhawaada muuqaal cusub iyo weliba janalkeena mar labaad waxaan kaa codsanayaa janalka intaa subscribe saartid videogana like saartid aad ayaad u mahadsan tahay muuqaalkeena maantana waxa uu ku saabsan yahay dad la soo dhashay ama dhaxlay ama dib uu kaga dhacay waxyaabo la yaab leh jidhkooga iyagoona yeeshay waxyaabo ayna dadka kale ee bini'aadanku ayna lahayn haddaba si aad u fahantid muuqaalka iyo ujeedadiisa oo dhammaystiran waxaan kugula talinaya inaad daawatid muuqaalka oo dhammaystiran aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay daawasho wacan muuqaalka oo dhammaystiran waa hubaal dhammaanteen ama dadkeenna oo dhan ilaahay uma abuurin si isku wada mid ah waayo waxaa jira qaar aan lahayn labada indhood xagga qaar kale ay jiraan aan lahayn labada lugood iyagoona jiraan qaar aan lahayn xubno badan oo jidhkooga ka mid ah waxaanad arkaysaa intaad dunida ku nooshahay waxba wuxuu ka la yaabka badan yahay waana xikmad ilaahay uu ku abuuray dadka looguna talagalay inaan ku cibro qaadanno shakhsiga koowaad waa shakhsi lagu magacaabo ninkii geedka ahaa inkastoo ay dhib badan tahay in shakhsi dhammaystiran oo ilaahay abuuray loo bixiyo geed haddana waa waxay ugu yeedhaan dadka agtiisa degani waa xaalad naadir ah waana xaalad fayras sababa in uu jidhku u ekaado una koro sida geedka oo kale oo jidhka qofka ama duubka qofka uu noqdo mid aad u qallafsan lana moodayo inuu shabaho geedka jiridiisa hoose runtii xanuunkan waa xanuun layska dhexli karo lagana yaabaa qofka in uu ku dhaco ama uu kasoo daahiro ka muuqashadiisu marka uu dhasho lagana yaabaa in marka uu weynaado uu kasoo daahiro ilaa iminka looma hayo wax dawo ah cudurkan waxayna iskala nool yihiin dadka qaar ee uu ku dhaco cudurkan sidaas laakiin waxaa jira dad kale oo ka bogsaday kana dhammaaday sida khuwaantiine oo ah shakhsi uu kasoo daahiray cudurkan 2017 laakiin ugu dambeyntii markii lagu sameeyey qaliin waa uu ka baaba'ay xaaladda labaad waa xubno dheeri ah laga yaabaa in ay jiraan dad labada qamcood lagana yaabaa inay jiraan sidoo kale dad aan lahayn laba xubnood iyo xubno ka mida jidhkooga xagga kalena waxaa la heli karaa sidaasi lamid a dad kale oo ilaahay uu sameeyey xubno dheeri ah xaaladdan af soomaali ahaan waxaa lagu magacaabaa xubnihii dheeriga ahaa ama xubnihii tirfiga ahaa laakiin nasiib darro waxaa ah inuuna shaqaynayn xubnahaas dheeriga ah qaybta ilaahay dheeriga ka dhigay ma shaqeeyaan badanka waayo waxaa iska adag inaad soo heshid qof ilaahay uu sameeyey 4 gacmood 4taa gamcoodna ugu shaqaynayaan sida labada gamcood aan u adeegsanno oo kale laba xaaladood ayaa la sheegaa inay ugu waaweyn yihiin inay sababaan arrintan naadirka ah kow waa wax natural oo ilaahay ku gartay ama ku abuuray shakhsigaas oyna wax soo fargashtay ayna jirin tan labaadna waa in uu qofkan intuu xuurka ku jiray ay dhacday cudurro kiimika ah ama biological ahaana taasna way sababi kartaa inuu isdaba maro abuurkii ilaahay saxda ahayd ugu talagalay taasna waxaa sababaysa kiimikooyinkan la isticmaalo qofka ka dhigaysa inuuna usoo dhashan ama uuna usoo dhalan sidii normalka ahayd ee la yaqaanay mid ka mid a dawooyinka loo isticmaalo waa thalidomide oo la isticmaali jiray dhammaadkii kontameeyadii taasoo ka hortegi jiray meelaha kiimikadu ka dhacdo in la siiyo gabdhaha uurka leh si uuna wax u noqon uurka jirtoodu sidoo kalena qofku marka uu soo dhasho waxaa lagaga jari karaa operation in lagu sameeyo xaaladda saddexaad waana geesaha rumaysa ama ha rumaysanin daawade waxaa jira dadka bini'aadanka qaar ka mid ah oo yeesha geesaha inkastoona la dhihi karin geesa saxdii ah oo u adag sida geesaha naqaano ee ay leeyihiin xoolaha aanu dhaqanno iyo xoolaha duurjoogta ee meelahaas ku nool laakiin waa gees ka soo baxa meel ka mid ah jidhka bini'aadanka laakiin waa naadir in uu weynaado lana arko gees aad u weyn waxaana sababi kara qaar ka mid a kansarka ku dhaca jidhka ama dubka madam damage oo ah islaan faransiisad ah ayaa ahayd shakhsigii koowaad ee yeelata gees aad u weyn inta lagu xusay taariikhda farihii muraayadda ahaa ama farihii sinaa waa xaalad naadir ah oo ilaahay ku abuuray qaar ka mid a addoommadiisa iyadoo farahaas ay simaan kana duwan una samaysmaan si ka duwan sidii caadiga ahayd normalka ahaydna la wada garanayay lagana yaabaa in la helo qaar ka mid a farahaas u batay uuna gaadha ilaa 7 farood waxaana bartaa ka baxa suulkii iyagoona faruhu gebi wada simaan kana soo jeedsadaan hal meel lana moodayo in fara la yahay inay yihiin farasaa loo simay xaaladdan ma aha xaalad la iska dhaxlo mana aha mid ay kiimika sababto ee waa abuur ilaahay oo natural ah qofkuu doonana uu ku sababo qofkuu doonana uu ka caafiyo ma qaban karaan dadka la dhibaatooda cudurkan waxa ay qabtaan dadka farahooga caadiga yihiin si kastoo ay farahooga u bataan ugana bataan dadka kale ee caadiga ah
Xaaladda kaliya ee laga hortagi karo xaaladda kaliya ee lagu daweyn karana waa in qofkaas lagu sameeyo qalitaan loo kala fudaydiyo farahan badan ee dheeriga ah weliba. Xaaladda kale waa xaaladda lagu magacaabo gabarmaanyada. Ugu dambeyntii waxaan isleenahay ama aan dhihi karnaa laga yaabaa inay jirto ama ay run tahay waxaan lagu magacaabo laguna muransan yahay waqti badan ee gabarmaanyada in ay jirto ama aysan jirin. Jiritaankeeda waxaa la dhihi karaa qayb ka mida waa run, waayo waxaa la arkay dad u dhashay sida gabarmaanyada iyadoo isku samaysan yihiin qaar ka mida lugahooda ama lugahooda oo dhammaystiran. Xaaladdan lama garanayo wax sababa ilaa imika. Culimmada ama dhakhtarada baaritaamada ku sameeyeyna waxay sheegayaan inay tahay laba shay, inay tahay bii'ada uu ku dhashay iyo weliba in ay tahay wax uu ka dhaxlay waalidiintii ama awoowayaashiisii hore. Waxaa la diiwaan geliyey hal gabadh oo weli u dhalatay sida gabarmaanyada oo kale, iyadoona dhibaatooyin ku qabtay gabadhaasi qaybta cuntada shiiditaankeeda, qaybta weliba isticmaalka musqusha iyo qaybo badan oo normal dadka u ah inay iyadu ku dhibaatoon jirtay maadaama xaaladdeedu ka duwan tahay. Ugu dambeyntiina waxa ay soo gaadhay 10 sano oo keliya, waxayna dhibatay da'deedu markay ahayd 10 sano. Gacantii soo laamaysay ama gacantii maqaska oo kale u ekayd waa xaalad kale oo loogu magacaabo gacantii kala qaybsanayd, waayo waxay u samaysan tahay gacantani suulka iyo weliba far keliya iyadoo ayna ka maqan yihiin farihii kale ee dhexda ku yaallay. Xaaladdan waxaa la sheegaa inay tahay xaalad ay sababtay maadaama chromosome 7 uu ka maqan yahay buuxinta qaybaha ka dhiman unugyadaas samaysmayay. Saa darteedna waxay noqotay inay ku soo dhashaan dadka qaba cudurkan. Sidaas waxaa dhici karta laba qaybood inuu qofku ku soo dhasho iyo weliba in uu kadib dhexda ka bilaabdo hoosna u sii socdo ilaa ay ka go'ayaan qaar ka badan farihiisa oo dhammaystiran, waana la kala dhaxlaa mararka qaarkood. Labadii weji. Xaaladdan waa xaalad ka mid ah xaaladaha ugu naadirsan ee la diiwaan geliyey ilaa imika, waana xaalad ah in uu jidhka qaybo ka mid ah ay dib u soo noqdaan 2 jeer. Tusaale, in uu soo noqdo 2 indhood, 2 af, 2 dhagood 2 jeer, saasna ay ku noqdaan 4 indhood iyo 2 af iyo waxyaabo kale oo badan oo taas ka mid ah. Badanaa dadka xaaladdan qaba waxa ay soo dhashaan iyagoo meyd ah, laakiin waxaa la diiwaan geliyey qaar ka mid ah. Lali Singh waxay ahayd gabadhii keliya la diiwaan geliyey iyadoo nooleyd 2 sano, waxayna ku soo dhalatay 4 indhood, 2 san iyo weliba 2 af, laakiin waxa keliyana soo noqon wuxuu ahaa dhagahoodii. Waxay dhimatay markii ay jirtay 2 bilood iyadoona u dhimatay wadne istaag. Waxaan u malaynayaa xaggaas ay ahayd meeshii muuqaalkeena maanta ugu dambeysay. Waad ku mahadsantahay haddaad xaggan soo gaadhay. Waxaan rajaynayaa inaad muuqaalka like saari doontid, xagga channelkana subscribe ka saari doontid, adigoona nagu dhiili karin karaa commenti kuna qoraya hoosta fiidiyogan. Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Intaan ku kulmi doono muuqaalka xiga waxaa idinkaga tegayaa peace.